Arxiim casharka waxaan ku baranaynaa sida loo raadiyo angalada trigonometriga qaar anagoo adeegsanayna midaalada isku darka iyo kala jarka the sum and difference of angles identities. Midaalada halkaas inoogu qoran yihiin waa lixda formula ama lixda identity. Laba shay aan rabnaa inaan isla aragno. Shayga koowaad wuxuu yahay goorta sin la joogo calaamadu isma bedelayso. Waxaan la jeednaa marka halkan labada angle plus tahay halkan waa plus way. Goorta ay ka jirtaayna halka iyadana waa minus way. Laakiin cos goorta la joogo rogaynaa marka labadii angle la isku daro hadhowdi formulada gudaheeda ama jidka gudihiisa wuxuu noqonayaa ka jar. Goorta ka jirtaayna ku dar. Arrinta labaad waxay tahay angalada A iyo B mar walba qaabkaas isugu xigi doonaan AB haddana AB. Wala koowaad waxaan raadinaynaa qiimaha sin 15. Waxaan raadin doonaa marka hore common angleska aad soo qaadatay ama special angleska aad soo qaadatay labada angle ee kamid ah ee goorta la isku daro ama la kala jaro 15 keeni kara. Waxaan naqaanaa in 30 iyo 45 haddii labada la kala jaro ay 15 ina siinayaan. Sababta marka 40 iyo 30 oo la kala jaray ba 15 kana siin kara. Waxaan u kala qaadaynaa marka 15 ka kan 40 iyo 30 oo kala jaran baan u kala qaadaynaa. Waxaan leenahay marka sin 45 minus 30. Hadda labada angle maadaama aan kala jarnay identity-ga ka jarka aan isticmaalaynaa oo tan qaybta tan hadda midigta xigta A iyo B waxa inoo ah angalada 45 waa A 30 waa B way. Waa ku bedbedelaynaa kaliya marka A waa 45 B na waa 30 meel walba ku aragto. Hadda marka qiimayaashooda u raadi sin 45 root 2 over 2 way. Cos 30 waa tan waa root 3 over 2 laga jaray waan leenahay. Cos 45 waa root 2 over 2 iyaduna sin 30 waa 1 over 2 way. Saad marka isku dhufo oo kala jar hadhowdi marka hore aan isku dhufano waxa isku dhufanayna 2 iyo 2 labada 4 ka soo baxay labada sarana isku dhufo root 6 bay noqonaysaa root 6 over 4 minus soo qaado labadana isku dhufo labada hoose isku dhufo waa 4 labada sarana isku dhufo waa root 2 way. Saad marka labada hoose maadaama isku mid yihiin mid soo qaado labada sarana kala jar ma kala jarmayaan sidoo soo qaad marka halka barta waa kaga tagi kartaa haddaan calculator ka sii gelino waxa noo soo baxay 0.25 in la eg tahay. Identity marka isticmaal 0.25 ayay soo baxday hadda sin 15 geliso calculator kaaga iyadana sidoo kale waxa soo baxay 0.2588. Tusaalahan labaad waa cos way. Waxaan raadinaynaa special angleski labada angle ee goorta la isku daro ama goorta la kala jaro 105 keeni kara. Waxaan naqaanaa 45 iyo 60 goorta la isku daro 105 soo bixi karta. Sababta marka 105 kan waxaan u kala saari doonaa 60 iyo 45 oo isku darsan. Maadaama angle-ka loo kala qaadayo laba angle oo isku darsan ama kala jaran waa sababta loo yiri sum and difference. Sababta marka 105 kan waxaan u kala qaadaa 60 iyo 45. Labada angle maadaama isku darsan yihiin identity-ga kan ama midaalka kan isku darka aan soo qaadanaynaa. Waxaan soo niri cos goorta tahay calaamadu isbedelaysa. Calaamada hadda maadaama meeshan plus ay tahay hadhowdi jidka ama formulada gudaheeda ka jar bay noqon doontaa. Ya A ah ya B ah. A waxay noo ah kan hore waa 60-ga B na waxa ah 45-ka. Ku bedbedel marka meesha ay aragto ku aragto 60 u bedel B dana 45. Cos 60 waa half way ama 1 over 2. Cos 45 waa root 2 over 2 minus soo qaado sin 60 waa root 3 over 2 sin 45 na waa root 2 over 2 way. Isku dhufo marka oo kala jar kadibna labada hoose isku dhufo waa 4 labada sarana isku dhufo waa root 2 way. Okay ka jar soo qaad labada isku dhufo waa 4 labada root na isku dhufo waa root 6 way. ma kala jarmayaan labada sare laakiin labada hoose soo qaado barta waa kaga tagi karnaa aan sii raadino saan u xaqiijino in labada isku mid yihiin root 2 minus root 6 divided by 4 goortan ka shaqeyno calculator aan gelino waxa noo soo baxay inay tahay negative 0.2588. sidoo kale haddaa geliso cos 105 calculator kaaga iyadana isla intaas oo kala soo baxaysa. Tusaalahan saddexaad waa tangent way. Common angleski waxaan raadinaynaa labada angle ee goorta la isku daro ama kala jaro 75 inaan siin kara. 30 iyo 45 baa goorta la isku daro keeni kara 75. Sababta marka 75 waxaan kala qaadi doonaa 30 iyo 45 oo isku darsan. Maadaama la isku daray identity-gi ku dartaay baan soo qaadanaynaa. Waxa ay ah 30 45 na waa maxay waa B way. Ku bedbedel marka tangent 30 waa root 3 over 3 way plus tangent 45 na waa 1 way. 1 kan sidiisa u soo qaad minus tangent 30 haddaan soo sheegnay waa root 3 over 3 tangent 45 na waa maxay waa 1 way.
inta marka shaqay marka inta sare hooseyaasha midee 1 kan kor iyo hoos waxa ku dhufataa 3 over 3 uu noqon doona labada hoose marka mid baan soo qaadan doonaa 3 ah si ay wax noqonaysa marka root 3 plus 3 over 3 qaybtan 1 kan hada kan ku dhufato root 3 over 3 waxa kama bedelayo sida marka 1 minus root 3 over 3 baan ka shaqeynaa sidii si lamida 1 kan kor iyo hoos waxa kaga dhufataa 3 over 3 uu noqon doona labada hoose mid soo qaado 3 minus root 3 ba kor uu noqonaya sida jajabiyada uga shaqey kan hore hadaan soo qaadano kan dambana aan rogno 3 iyo 3 ga isla bixi doona sida wax noqonaysa marka koreeyaha oo root 3 plus 3 ah iyo hooseeyaha oo 3 minus root 3 ah labada 3 way isla baxeen inta hadda ka shaqeyso iyo hadda tangent 75 calculator-ka aad geliso labada goorba waxa ku soo baxay 3.732 tusaale afraad waxaan la weydiiyay cos 165 165 waxa keeni kara 120 iyo 45 oo la isku daray cos 165 kaas waxaan kala qaadanaa 120 iyo 45 oo isku darsan maadaama tii ku darta ayada aanu adeegsanay tanaan soo qaadanayna ku darta ah ku bedbedel marka 120 kuwa a 45 kuna b way marka cos 120 say u raadinaynaa way cos 120 saa u hesho waxba ka baqin 120 waa ina garanayso quadrant-ga ay dhacdo 120 waxa dhacaysa waaxda labaad marka aan sawirno intaas oo idil ba waxay tahay 120 anaga waxaan u baahanahay xageeshatan quadrant 2 ga dhacda x axis ka xigta qiimaheeda ilaa halka maadaama 120 ay tahay 180 maxaa uga harsan marka 180 waxa uga harsan 60 waa 180 iyo waxa kala jaraysa 120 iyo waxa isku mid ah 60 oo quadrant 2 ah marka hadii 120 mar walba aan ka shaqeyno waxaan la dhaqmaynaa sida inay tahay 60 degrees oo kale laakiin waxa xusnaataa quadrant 2 la jooga si ay quadrant 2 goorta la joogo functionada qaarna positive ahaan jireen kuwana waa negative quadrant 2 goorta la jooga anaga hadda cos iyo sin baan qoseeyay sin waa positive cos kuna waa negative macnaheedu waxa weeye 60 goorta raayisa hadhowdii maadaama quadrant 2 la joogo mar walba cos ay tahay negative baan raacinayna waxaan 120 waxaan ka soo qaadanaa sida inay 60 tahay maxaa yeelay waxa isku mid ah 120 iyo 60 degrees oo in quadrant 2 ah sida marka cos 120 waa adoo yiri cos 60 oo quadrant 2 ah cos 60 marka waxay tahay waa 1 over 2 eh laakiin cos waxa xusnaataa inay negative tahay quadrant-ga labaad sida marka negative 1 half uu noqonaya cos 45 waa root 2 over 2 minus soo qaad sin 120 waa adoo yiri sin 60 oo laakiin quadrant 2 ah sin 60 root 3 over 2 sin waa positive way sin 45 na waa root 2 over 2 way labadaas isku dhufo waa 4 labada isku dhufo negative root 2 minus soo qaado 2 iyo 2 isku dhufo waa 4 root 3 iyo root 2 hada isku dhufatana waa root 6 way labadaas ay mid soo qaad labada sarana kala jar inta hadan ka shaqeyno waxa soo baxay negative 0.96 hadaad geliso cos 165 calculator-kaaga iyadana waxa soo bixi doonta sidoo kale negative 0.9659 tusaalaha shanaad waxaan xaqiijinaynaa in cos 90 plus theta ay la mid tahay negative sin theta horeyn 90 waa inoo a theta waa maxay waa inoo b way waxaan ku shaqeyn doonaa marka identity-ga plus-ka ah meesha a waxa ku bedeshaa 90 meesha b ana waxa ku bedeshaa theta okay marka special angle table-kii aan eegno cos 90 waa 0 hadii 0 marka inta tan lagu dhufto way baaba'aysaa 0 hada cos theta ku dhufato waa 0 way okay negative soo qaado sin 90 waxaan naqanaa inay 1 tahay sin theta soo qaad 0 kan waxa matarayo negative 1 waxa isku dhufataa marka sin theta waxa soo baxay negative sin theta sidaas marka waxaan xaqiijinaa in qaybta midig ay la eg tahay qaybta bidix marka tusaalaha lixaad sidoo kale waxaan laga rabaa inaan xaqiijino in dhinaca bidix uu leeyahay dhinaca midig dhinaca bidix marka hadaan eegno laba qayb buu ka kooban yahay laftiisa qaybna waa maxay waa 30 plus theta iyo qayb kale oo ah theta minus theta sida marka horta qaybta plus aan ku hormarinaa qaybtan markaan ka shaqeynaa maadaama ay isku darsan yihiin identity-ga plus-ka ahaa samka ahaa aan adeegsanayna oo kana meel walba a ku aragto marka theta ku bedel meel walba b ku aragtana theta ku bedel qaybta kale oo imo qaybtan maadaama ay kala jaran tahay qaybtii difference-ga ahayd baan adeegsanayna kala jarka meel walba a ku aragto 30 meel walba b na waa maxay waxa ku bedeshaa theta sin theta waa half way cos theta sida soo qaad plus cos theta waa root 3 over 2 sin theta sida soo qaado plus sin theta hadan soo sheegnay waa half way kana sida soo qaad minus cos theta waa root 3 over 2
sin theta sidaa soo qaad halka hadda u fiirsato marka root 3 over 2 oo positive iyo root 3 over 2 oo negative ah halkan ku aragnaa labadana sin baa la socota isla baxaya marka maadaama calaamadoodu kala duwan yihiin waxa noo soo haray marka labada san soo qaad halkan oo ah 1 over 2 cos iyo halkan oo ah half cos okay laba half hadda isku darto waa 1 ama labadaba sin soo qaado labada sarana waa maxay isku dar 2 over 2 bay noqonaysaa oo lamid ah 1 cos okay cos theta soo baxday qaybta bidix oo idil waxa la ekaatay marka cos theta intaan raadinaynay ah hada billahi tawfiiq